أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء والقلب يخفق حبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ururka gargaarka gabdhaha Soomaaliyeed ee hore aad ugu barateen kobcinta aqoonta iyo horumarinta xirfadaha gabdhaha isla markaana xaliyo caqabadaha gabdhaha Soomaaliyeed wuxuu idin soo agaasimay dood cilmiyeed oo ciwaankoodu yahay sidee gabdhaha xishoodkooda dib loogu soo celin doonaa. gabdhaha oo dhan ma wada saameyn doono laakiin waxaanu ka warqabnaa in xishoodka bariyahan dambe uu noqday midka ugu liito ee gabdhaha Soomaaliyeed qaybta ugu badanna ay u arkaan inay tahay horumar isla markaana aan laga digtoonoonin dhibaatooyinka badan ee keeni doonto arintaasi. mawduuca maanta aan ku wada sheergaran doono aan isla falanqeyn doono waa mawduucaas waxaan idin qayb qaadan doono Amira Aways, Raxma Salaad iyo Aamina Cabduqaadir. marka hore intaanan xalka u guda gaarin waxaan marka hore si gogol dhac ah u weydiin doonaa Raxma Salaad xishoodka waxa uu yahay iyo xishoodka in uu yahay wax la kasban karo ama ba loo dhashtay. soo dhawaab Raxma Salaad. دكتورة إدل وادو هاي آذا وما صنتهاي دمان والسلام يا كبدها هل كان يداون دونه إن شاء الله. وحرجينا إن هناك قب قادم دون تنا دو الله بود الرالي كنقضوا وحي في عن دعم سان. مركب ورث هذا كهذا الحشوت كمحاواي حشوت كوحاواي وحا إنسان كقريبا يعني إنه حمان سمايه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر له ويدين وحده هاي سحابي سؤولها دلاي وحده هاي استحيوا من الله حق الحياء. مركز بحيرهن قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قالوا ليس ذلك ولكن الاستحياء وحاواي يعني أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. والبطن وما حوى sidoo kale qofka oo doonayo adduunka aakhiro qofkii rabo inuu adduunka ka tago adduunka siinadeeda inuu iska dhaafo laba shay oo isqabanayni waay inaa aakhirana jeclaatid adduunkana aartid inaa ku raaxaysatid ma iskeenayso. marka aslan xishoodka waxaa waaye wax allaal wixii ilaahay kaa reebay inaa aad ka reebtoonaatid oo ka xishood madaxa iyo waxyaabaha ku hareeraysan waxaa soo galayo indhihii afka sanka dhegahaada ayaan ku dhegaysan wax uusan ilaahay raali ka aheenin indhahaada aad ku fiirin wuxuu alla raali ka aheenin afkaadana aad uga hadlin wuxuu ilaahay raali ka aheen. sidoo kale walbadna waa maxaa caloosha iyo waxyaabaha ku hareeraysan oo ay ka mid tahay farjigii lugihii gacmihii iyo waxyaabahaas oo dhan qalbiga uu soo galayo oo laga ilaaliyo xasadka iyo xumaanta sidaas waaye. sidoo kale xishoodka waxa waaye wax oo fidri ah waaye oo marka horeba insaanka ku abuuran oo ilaahay ugu talagalay. aayado badan oo quraan ah looga hadlay midaalo far badan jiro gabdhihii hore si u xishoon jireen. waxaa wax ka soo qaadana waxaa ka mid ah gabdhihii nabiyullaahi Shucayb nabi Muuse markii uu la kulmay ayagoo meel kees taagan arigooda wato oo rabaan ceelka inay yani biyo ka dhaansadaan ama ay ariga oo biyo ka sistaan oo rabaan keesay taagnaayeen waxay ka baqaayeen macnaha in ikhtilaaf dad badan meesha joogay ragkii meesha joogay waxay ka xishoonayeen inay dhex galaan. kadib way u imaadeen fajaa'at ihdahuma tamshi ala istixyaa'in qaalat استحياء waxay u dhaxaysaa laba ficil oo socodka ah iyo hadalka ah inay yani istixyaa تمشي على استحياء قالت على استحياء ايضا سي حشود له او hadlayso si xishood la ayado u socoto waxay ku raahday in abi yadcuuka liyagtiyaka ajra ma saqayta lana aabahe ee ku yeerayo si uu kaaga abaalmariyo waxyaabii aanu qabatay oo arigi aanu waraabisay. taas naftirkeedu waxay ku tusinay yani hadalka inuu hadal yar oo kooban oo waadix ah inuu ahaado qofka oo ajnabi ka ah aanan war badan aan la gelin exactly bijarad wixii aragtid ina u taabatid. sidoo kale waxaa jira Aisha radiyallahu anha ummuna Aisha nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sida uu ognahay anbiyada markii geeriyoodaan meesha ay ku dhintaan lagu aasaa guriga Aisha ku tugnaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam
Abu Bakar dhinte isagana waa lagu duugay marka gurigeeda iska joog jirtay ayadoo yani dharkeeda caadiga iska xiran ilaa markii dambe Umar uu xanuunsaday oo yani tiisi u imaatay uu weydiistay Aisha in gurigeeda lagu duugo way u ogolaatay kadib waxay leedahay ما يعني درك ما ديجانين مركي عمر لو دوغاي ماشاس معناها وحي كحشونيسا عمر او دنتي اي كحشوني وحي هذا الا انو دركيغا ادكيستي او استورنا غلاي sidoo kale waxa jirta Asmaa inta Abu Bakar in mataqaana ay sheeg wiilkeeda uu keenay hadiyad Asmaa oo markaas oo weyn noqotay oo weynaatay macnaha qofka haduu weynaadana inta badan takliifaad badan ka dhaco ee kamid tahay xijaabkii inaan laga rabin indhaheena ee beeshay yani waxa u maleena inuu u keenay da'da ay jirto way taabatay maradu waxay darantay inay mar jilcan inay tahay waxay dhahday maraba hadiyadiisa loo celiyo markaas waxa dhahay way jilcan tahay ummi laakiin la tashif hadaysan yani feedmeenin تصف يعني جركي سفانة وموجنة معناها وحي كتوسينة يعني مرحلة اي كجران iyo xishoodkooda heerka u gaarsiisnaa iyo gabdhaha hadda jiro markii loo fiiriyo yani in farqi aad u weyn inuu u dhaxeeyo sidoo kale xishoodku waa muktasab oo wax la kasban karo waayo qofka haduu ku dadaalo inuu kasbado mujarrad waxa u baahan tahay yani mumaarasa u baahan tahay iyo tikraar ee u baahan tahay qofka inuu sameeyo intaas ugu baxaya aada u maasanta waxa rajeenayaa ilaa iyo islaamka sidoo xishoodku u soo ahaa qarniyada uu soo maro waxyaabaha soo idil iyo su'aashii dhan inay naga shaafisay su'aasheeda labaad waxa weydiinayaa Aamina Cabduqaadir Aamina gabdho badan ayaa xishoodkii waxay u fahmeen in mar walba gabadha loo baahan yahay inay xishooto ma noo sheegi kartaa marxaladaha ama waqtiyada loo baahan yahay gabadha in aysan xishoon iyo waxyaabaha looga baahan yahay gabadha inay ka xishooto labadaas buu dad badan ay iskaga qaldan yihiin inaan noo sii bayaan sida Arabileen ugu horeen xishoodka marna wuxuu yahay mid waajib ah oo qofka loo baahan yahay inuu xishoodo marna yani ma loo baahno waa shay yani oo qofka inuu ka xishoodo laazim ay tahay waayo inuu ka xishoodo marka loo baahan yahay qofka inuu xishoodo awalan waa marka uu qofka waxyaabaha aan wanaagsaneen u arko yani wax kasta oo wanaagsaneen oo akhlaaqiyadkiisa hoos u dhigaayo qofku wuxuu mudan yahay inuu isaga xishoodo sida meelaha munkaraadka kala lagu haayo meel muustika ka yeerayso kale meel yani waxyaabo wanaagsaneen ma ifanaaniin meel show lagu qabanayo kale qofku waxa mudan yahay markaas inuu ka xishoodo uu ka gaabsado halka gabadha ay mudan tahay inaysan ka xishoonin hadalka wanaagsan hadii tusaale ahaan ay gabadhaasi wax barato ay galaaska ku jirto kale in aysan xishoonin oo wixii markaas macalinka weydiiyo ama hadii la dhaho jaamacadda kale maanta prestation ku qoran tahay ardayda hortooda soo istaag wax jeedi ay dhihin anigu waa ka cabsadaa iyo waxaan ma aqaani sidoo kale gabdhaha inaysan ka xishoon taabuurada oo kale gabdhaha secondary-ga dugsiga dhexe iyo ay dhihin aniga xishooda iga reebay xishoodka saxda kaas ma ahan xishoodka saxda waxa waaye inaasan ragga dhex boodin oo waxyaabo aan munaasib ahayn aadan ku hadlin laakiin markaad aqoontaada soo gudbinaysid ama markaad aqoon dad la qaybsanaysid kaas xishoodkaasi ma ahan xishood jiro waxa loo baahan yahay inaad dhiiran karto waxna soo gudbin karto waxna aad qaadan karto laakiin taas cagsigeeda gabdhaha inta badan waxaad arkaysaa iyagoo meelahan hadda aaladahan social media oo kale ayagoo dhex taagan oo sameynayo waxyaabo aan yani munaasab ahayn su'aal ahaan gabadha madaxay soo qaabsatay dirac yar soo xiranay ama garanay soo xiranay iyo salwaal markaas hees iska soo duubay heesta marka iska duubto mid kale luuq u galay wuxuu leeyahay qof waa shidanta waa kala kacsan tahay iyo noocaas tahay marka nin kasta oo gabadha akhlaaq xumo ama xishood daro ugu socodtumana ma u baahno oo hadhow wuxuu raadinaa wax qarsoon ama gabar asturan oo raadinaa
mid kasto yacni ninka xun ninka wanaagsan ninka yacni ay shay nimanka isugu jiraan nin kasto wuxuu ku hamiyaa gabar fiican inuu helo hadduu rabaa iska xumaado laakiin ma arkaysid mid dhahaayo gabadhaasaa rabaa laakiin gabdhihii in ay isqaawiyaan cawraadkooda banaanka keenaan ama sawiro qaaqaabin ay ragga la wadaagaan oo kale ay u diraan oo soo dir haddii la dhaho ee dirto gabdhahaas waxaa leeyahay waxyaabaha mudnaa in laga xishoodo waa kaa laakiin ma mudna inaad aqoontaada gudbisid oo hadashid inaad dadka la sheergaraysid waxaad aaminsan tahay waxyaabahaasi waa waxyaabaha qofka inuu ku dhiirado la rabo inuu horumar badan ka sameeyana la rabo gabar kasta oo xishood la-aan yacni dareemaysana in ay iska dhaafto oo xishood ku bedelato taa bedelkeeda aamin aada u mahadsan tahay sida ka dhawaajisay ustaad raxma oo micnaha ugu weyn ee xishoodka oo ah in qofka uu ka xishoodo wixii ilaahay uu ka reebay uusan sameyn taasina waxay saameyn ku yeelan doontaa wiilka iyo gabadha labadoodaba hadafka ugu muhiimsan ee hadda aan gabdhaha u saareyno ama targetkeena uu u yahayna waxay tahay xishoodka waa wax ugu wanaagsan ee gabadha qurxiyo kana qayb qaato kobcinteeda iyo quruxdeeda iyo akhlaaqdeeda isla markaana xifdiyo karaamadeeda sababtoo ah gabadha marka ay xishoodka ka tagto waxay riski ugu jirtaa dhibaatooyin kale oo badan su-aasha saddexaad aan weydiin doono amiira waxay tahay xishoodka noocyo ma leeyahay hadduu leeyahayna ma noo sheegi kartaa bismillaahi raxmaani raxiim uu leeyahay noocyo xishoodka waxayna leedahay 4 nooc oo kala ah qofka inuu ka xishoodo Allah subxaanahu wa ta'ala ugu horeen marka labaad qofka inuu ka xishoodo malaa'igta marka saddexaad qofka inuu ka xishoodo dadka marka afraad loo baahan yahay qofka inuu ka xishoodo nafsadiisa marka leena qofka inuu ka xishoodo yani Allah subxaanahu wa ta'ala waxa imaanaysa su'aal ah qaab noocee uga xishoonaya Allah wa xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyo Abdullah ibn Mas'ud oo ka soo wariyo abay aamin ee abay raxme ka hadashay istahyi min Allah haqqal haya yani in Allah laga xishoodo xishood midku mudan yahay يعني marka leena Allah subhanahu wa ta'ala midku uu mudan yahay waa in qofkii yani uu ogaado horta ilaahay indhaha muxuu u siiyay dhagaha maxaa lagu siiyay afka maxaa yani ilaahay uu ku siiyay ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله سبحانه وتعالى ولهاي يعني هذا القصة أفكار كسو بحايو ملاقيا كقريسو آيات كلو قرآن وحاجرته إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والله لها يعني دقاها وحا كوما قشيت وحا عندها كو أركتid iyo waxa maskaxda ku yeesid ba intaba yani mas'uula laga yahay waana lagu weydiina berito marka yani qofka ilaahay marka ku xishoonayo waxa loo baahan yahay xubnihiisaas inuu u adeegsado wuxuu ilaahay raali ka yahay oo kaga fogaado macaasida badiilka maanta anaga yani wadciga jiro marka ka hadalna iyo xaqiiqada jirto dhalinyaradii maskaxdoodii maxay u isticmaalaan maanta dhan heesa in la xifdiyo ma la yani meediya waqtiga la isaga lumiyo inta quraanka la xifdiyo ahadiistii lagu xifdiyo maskaxda ilaahay ku siiyay يعني نعمة إله وكسي أنت لو شكرين لها بدل كده حلاقة دقي إن وقت جل استغلومية تسكن دقي إن لو دقي يستوى حياة إله رالي أكيهن إن لو هالله حياة إله رالي أكيهن دتك لحنته يعني وحياة إله رالي أكيهن لو عنا أفكي حتى يعني دراجس إن استعمالان الانتقار وح عادي إلا طاي فهمتي وحياة أساس وجلسه إن حديثك وحكى له كجرة إن على شيء أنت كهوس يسبقفك يعني إنه مسؤول كيهاي سالهان إن وكفقاده إنه ميلها معصيد الله هاي وآده إنه علوشي السنة وحران وقليه وبونتتاس وإلهي يعني مركب حشودك إلهي للرب إن لقى حشود وإلهي إنه وحرالي كي هاي لصميه وحو إلهي ديدنا أكهرنا حشودك لبعض وإن ملائكة لقى حشوده لأن الله سبحانه وتعالى وحولها يعني كربهنا وحسارا رقيبي عتيد وقرايو وحول بقاسة منه سكن وحاجرت ملائكة مرة نهر سعته مرة وحاجر قفك إنه شلك كبدبادة محن كبدبادة يعني ملائكة بدبادة سو إلهي وصدره ملائكة سنة الله سعته حلو بها إنك كحشونا إن عثمان بن عفان الله كرا لنقضي بحاجرتي مركو مسخش كجرو قوي سنة وحل يجري يعني استاكو ما قوي سنجرو فري سنجري مركز سالو يدي عثمان ومحاس سوينا يعني فريقو قوي ستت مركز سودا وحا كحشونا يا ملائكة إلهي تاسو إلهي يعني كرامية إن ملائكة أصلا كحشودان عثمان بن عفان ملائكته وكحشون جرتي فضل ياس إلهي محو كارتيه محو كحشون جر ملائكته لأنه إنا كحشونا ملائكته وإلهي يعني الناس ودريون هريها بين الدبتاجن ونجور هيان وحسمينين تنشد حاد وإنا كحشونا ضدك قفك مركو ضدك كحشوده يعني حتى هذه مركو كحشونا وقفك تقديرين وقفك كحشوتي وقفها قدر سي قف يعني ما تأمير أحد كسوهر استاجو وحيابها قار مكهر سمينيسي سوات محيطها وتقديرني
marka qofka waxaa la rabaa dadka markuu hor joogo inuu xumaanta kala kambado uu yacni ka xishoodo isagoo u fiirinayo alla ka cabsi laana jayn waa waxaan isla socdaan qofka ilaahay haduu ka soo xishoado malaa'igta ka xishoodo dadka inuu ka xishoodo waa haduusan dadka ka xishoonin wax badan halaabayo waa tan maanta taagan oo gabdhihii ayagoo qaaban meedihii taagan yihiin yacni asturkii uu dhamaaday xishoodkii yacni gabdhi iyo wiilo ajnabi kale ah maanta dhan isla heesaayo ag taagan yacni xishoodkii way dhamaatay mid ugu dambeyso waa in qofku uu ka xishoodo nafsadiisa waa naftaada inay kuu diido inaa yacni u horseedid ama ee aada xumaan aada u mahadsan tahay Amira goobaha waxbarashada waa meelaha ugu muhiimsan ee akhlaaqiyaadka qofka lagu dhiso waxaa arkaysaa gabdho badan oo jaamiciyiin ah oo waxbarasho ilaa heer sare gaareen isla markaana xishoodkii ka tagay ama waxyaabo qof aqoonyahan sida aqoonta loogu talgalay in qofka akhlaaqiyaadkiisa wax ay ka bedesho haddana aad arkaysaa aamin waxaa ku weydiinayaa ma jiraan faktoro kale oo sababi karo gabdhihii in ay xishoodkii ka tagaan marka laga soo tago goobta waxbarashada isla markaana waxbarashada laftirkeed goobihii waxbarashada jaamacadaha saameyn ku yeelan kartaa akhlaaqda gabdhaha Soomaaliyeed أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء